Salaamullaahi calaykum. Maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay habdhaqanka wanaagsan ee maskaxda. Dadka waa kuwo ku kala duwan dareenka maskaxda iyo sida loo adeegsado. Run ahaantiina mawduucani waa mid aad looga hadlay, wax badanna laga tilmaamay. Wax walba oo tayo leh ama heer sare ah waxaa lagu gartaa miraha ka soo baxa ama uu dhalo. Miraha maskaxda ku jiraana waa mid ku baraysa inaa ogaatid Alle subxaanahu wa tacaala oo ah kii ku abuuray. Maskaxdu waxa ay ka fikirtaa cadeymaha jiritaanka Eebaha abuuray ilaa ay ogaatay isaga iyo cadeymaha run sheegidda ah ee nebiyadu la yimaadeen ilaa ay aqoonsatay runnimadooda. Maskaxdu waa mid ku dhiirata adeecida Alle subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisaba sallallahu calayhi wasallam. Waxa ayna qorshaysay in ay hesho wax kasta oo ay adag tahay in la helo. Howlahana waa ay rabaayadaysay. Waa mida dadka barta inay samaystaan doonyo iyo maraakiib si ay u gaaraan wax kasta oo ay baddu kaga gudboon tahay. Shimbiraha baddana dawin u dhigtay ilaa ay ugaarsadeen shimbirihii. Intaas waxaa sii dheer, maskaxdu waxa ay dadka bartay inuu qofku ka tanaasulo nolosha adduunyo iyo adduunkan iyo howlihiisa oo dhan, oo uu maankana ku hayo mida aakhiro. Sababtaas darteed, bani aadamku waxa uu ka maskax sareeyaa xayawaanaadka ama noolaha kale ee Alle subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo laga horjoogsaday inay lahaadaan ama ay yeeshaan maanka ama maskaxda ay dadku leeyihiin. Waana waxa qofka loo saaray culeyska ah in uu hoggaansamo Eebe iyo amradiisaba. Iyada oo ay taasi jirto, qofku waxa uu gaaraa darajooyinka ugu sareeya ee uu gaari karo wanaagga adduun iyo kan aakhiraba, isagoo adeegsanaya aqoon iyo ficilba. Wanaagga ayaana ku filan baahida loo qabo in si qoto dheer looga faa'iideysto. Salaamu calaykum.